Macmiil ku soo dhawow YouTube channel-ka shirkadda isgaarsiinta Samtel Somaliland. Macmiil nagu soo biiro oo ka mid noqo isbeddelkan hiigsanayno. Macmiil haddii aad nagu cusub tahay bartay YouTube channel-ka shirkadda isgaarsiinta Samtel, fadlan subscribe saar adigoo raaliya. Videogan share garee, like garee, gaadsii eheladaada iyo qaraabadaada siday uga faa'iidaysato adeegyada shirkadda isgaarsiinta Samtel Somaliland. Ka mid noqo liiska tartamayaasha 5,000 abaalmarimood ee shirkadda isgaarsiinta Samtel ay ka mid yihiin gaari Hollandia, mobile 4G, talaagado, washing machine iyo dalxiis hurdheelada damala. Sidaad uga mid noqoto ku shubo internet ama magacaygu waa Suldaan, magacaygu waa Seeraar. Isku si ayaan u hadalaa, isku sina waan u labisanaa, isku midna waanu nahay. Aniguse waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. Anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. War ma ahayn run miya? Waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2,500 oo shilin. Oo waa bilaash bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah. Caadi ma aha, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? Fikir. hadal oo hadaalin maalinta oo dhan ku hadal 2,500 oo shilinka Somaliland amaba bishoo dhan ku hadal $5 oo kaliya. Samtel shirkadda dadweynaha waa barnaamijka garow guuleyso waa qaybtiisii aanu maalintii macaamiisha ku booqan jirnay goobahooda ganacsi iyo xaafadaha ay ka degan yihiin Hargeysa. xaafadda Calaamada ayaan joognaa maanta. macaamiil kala duwan baan la kulmi doonaa. isla socod wanaagsan. walaal ku soo dhaw barnaamijka garow guuleyso shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel. magacaaga noogu bilow. bismillaahir rahmaanir rahiim. magacaygu waa Maxamed Cali Cumar. Waad mahadsantahay. maxamed waad mahadsantahay. xaafadda ka degtay magaalada Hargeysa. Calaamadan deganaa walaal. Samtel ma isticmaashaa? su'aal baan ku weydiinaya. su'aashu waxay koraysaa shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel macaamiisheedu waxay u daahfurtay abaalmarino 5,000 gaadhaya oo ay ku jiraan 10 baabuur oo Hyundai ah in lagu guuleystana shuruudaha ku xidhan. maxaad ka xasuusataa shuruudaha ku xidhan in lagu guuleysto? inaad dahab isticmaashid internetka Samtel inaad isticmaashid yadna markaa way badan shuruudo laakiin intaas ka xasuustaa imika mid qura ka dhiman dahabta internet kale waxa weeye inaad ku hadashid ama ku shubatid aad mahadsantahay. waad guuleysatay, waan ku hambaleynayaa $5 adeeg muraad oo muddo hal bil si lacag la'aan ah telefoonkaaga ugu hadlaysid baad ku guuleysatay. shirkadda Samtel aad bay mahadsantiin. waxay dhiirigelinaysaa tani inay dhalinyartu ay qaataan Samtel, dadkana waxaan leeyahay ku baraaruginayaa inay qaataan shirkadda Samtel. aad bay mahadsantiin. walaal ku soo dhaw barnaamijka garow guuleyso shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel. magacaaga igu bilow. magacaygu Xasan Axmed Maxamed. xasan xaafadda ka degtay magaalada Hargeysa. waxaan ka deganaa Calaamada. Samtel ma isticmaashaa? haa. su'aal baan ku weydiinaya. okay. Samtel waxay daahfurtay abaalmarin gaadhaysa 5,000 oo abaalmarinood oo 10 gaari oo Hyundai ay ku jiraan. 3 shuruudood baa ku xidhan in macaamilku uu ku guuleysto abaalmarinahaas. 3 shuruudood ma garanaysaa? haa. waa in qofku kaarka Samtel isticmaalo, inuu adeega dahab furan yahay, inuu internetka isticmaalo iyo inuu ku shubto lacag kaarka. lacagtaasoo internet ama prepaid igu soo celi. waa inuu kaarka Samtel isticmaalo, in adeega dahab furan yahay iyo inuu telefoonka ku shubto lacag internet ama prepaid. waad guuleysatay, waad mahadsantahay, waan ku hambaliyeynaynaa shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel. aad iyo aad bay ku hambalyeynaysaa. waxaad ku guuleysatay xidhmooyin internet iyo hadal isugu jira muddo 7 maalmood oo telefoonkaaga internetkiisa si lacag la'aan ah aad u isticmaalaysaa, hadalkana si lacag la'aan u isticmaalaysaa. maxaad leedahay Samtel? waxaan leeyahay Samtel aad baan idin hambalyeynayaa. adeega fiican aad bulshada ku dhisayna waan idinku mahad celinaa. walaal ku soo dhaw barnaamijka garow guuleyso shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel. magacaaga igu bilow. magacaygu waan dhawahay. magacaygu waa Maxamed Xariir Xasan baa la yidhaa. maxamed waad mahadsantahay. Samtel ma isticmaashaa? Samtel waa isticmaala. su'aal baan ku weydiinaya. su'aashu waxay koranaysaa Samtel waxay macaamiisheeda u daahfurtay abaalmarino gaadhaya 5,000 oo abaalmarinood in abaalmarinaha lagu guuleystana 3 shuruudood baa ku xidhan. shuruudahaasi ma garanaysaa? shuruudaasi haddii aan isku dayo inaad kaarka Samtel isticmaasho, adeegga dahab isticmaasho, prepaidka Samtel aad isticmaasho. taasi waxa weeyaan prepaidka dahabta iyo internetka, adeegga internetka. waan ku hambaleynayaa, waad guuleysatay. waxaad ku guuleysatay $10 oo internet muddo hal bil si lacag la'aan telefoonkaaga Samtel aad ugu isticmaalaysaa internetka. maxaad leedahay shirkadda? waxaan leeyahay shirkadda aad iyo aad baan bogaadinayaa, aan soo dhaweynaya.
ugu mahadnaqay walaalo kusoo dhow barnaamijka garooga guulayso shirkadda isgaadhsiinta casriga ee Samtel magacaaga noogu bilow walaaliin waad mahadsantahay Sagaal Bandeeqay waan ku dhawahay barnaamijka magacaygu waa Cabdirashiid Ismaaciil Maxamuud oo ku magac dheer Miigane meheradaygana Miigane Gifts leeyahay waan ku dhawahay barnaamijka Miigane aad iyo aad baan ku soo dhaweynayaa Samtel ma isticmaashaa haa waan isticmaalaa waxaan su'aal baan ku weydiinayaa su'aashu waxay ku odhanaysaa Samtel waxay macaamiisheeda u daahfurtay abaalmarino gaadhaya 5,000 oo abaalmarinood oo xataa 10 baabuur oo Hyundai ay ku jiraan 3 shuruudood baa ku xidhan macmiilku inuu guulaysto 3 shuruudood ma garanaysaa saddexdaas shuruudood ku xiran runtii horta waan joogay barnaamijyada ay shirkadda isgaarsiinta ee casriga ah Samtel ay u qabanayso macaamiisheeda iyo customerska kala duwan ee jooga guud ahaan geyga Soomaaliland iyo gobolada kala duwan iyadoo maalmihii u dambeysay ay ku qabanaysay branchiyada Star Area dahabshil xarunta dhexe ee Damal xarunta dahabshil International Bank runtii horta haddaan su'aalahan isku dayo anu horta nin ganacsada baanay haddii waan jeclaystay in su'aalahan ka soo qayb galo haddii aan isku dayo waxaa ka mid ah in aad ku shubato prepaidka Samtel inta billaha ee Samtelsha iyo internetka ee Samtelsha su'aasha saddexaadna Sagaal Bandeeqay inaga saar doontaa anaga hadiyad ku salaamay maxabadii saddexaad xabadii saddexaad waxaan jeclahay inay tahay gabadhida shuruudaha lagu helayaana waxay ahayd fariinta saddexaad ha soo dhow barnaamijka garooga guulayso shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel magacaaga noogu bilow waan dhawahay walaal Sagaal magacaygu waa Khalid Xuseen Maxamed Ismaaciil Khalid Xuseeno Samtel ma isticmaashaa si wanaagsan su'aal baan ku weydiinayaa Khalid oo su'aashan waxay ku odhanaysaa shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel macaamiisheedu waxay u daahfurtay abaalmarino gaadhaya 5,000 oo abaalmarinood kuwaas oo loogu talagalay in macaamiishu ay ku guulaystaan 10 gaadhi oo Hyundai ah ku jira laakiinse shuruudaha ku xidhan 3 ka kooban shuruudahaasi maxay yihiin Sagaal waa runtaas aad sheegtay waxay shirkadda Samtel diyaarisay hadiyadaha aad u qaaliya hadiyadaha aadka u qaaliga si looga faa'iideysto shuruudoodu waa 3 saddexdaas oo kala yihiin marka waad sidaad inaad ku shubato prepaid ahaan qoaalka gubato talabaad oo ah internetkaaga yani daatadaada saddexaadna dhaqdhaqaaqaaga ii dahabta saad u isticmaasho aad iyo aad baad mahadsan tahay waad guulaysatay waan ku hambalyeynaa waxaad ku guulaysatay xidhmooyin internet iyo hadal isugu jira muddo 7 maalmood ayaad si bilaasha internetka iyo hadalka labadaba kaarkaaga Samtel isticmaalaysaa waad ku mahadsantahay walaal aad iyo aad ayo walaal ku soo dhow barnaamijka garooga guulayso shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel magacaaga noogu bilow walaal waad ku mahadsantahay Sagaal aniga waxa la dhahaa Salmaan Maxamed Salmaan Maxamed Saaxil Saaxilow Samtel ma isticmaashaa haa walaal xafideedka diganta maadaama walaal halkan aan taaganay su'aal baan ku weydiinayaa su'aashu waxay ku odhanaysaa shirkadda isgaadhsiinta casriga ee Samtel macaamiisheedu waxay u daahfurtay abaalmarino 5,000 gaadhaya oo 10 baabuur oo Hyundai ay ku jiraan in lagu guulaysto 3 shuruudood baa ku xidhan saddexdaasi maxay kala yihiin waxay kala yihiin ii dahabtood sida xawaara u isticmaasho oo dhaqdhaqaaqaaguna bato internetkaaga oo tayadiisu sareyso iyo ku hadalkaaga bata saddexda shuruudood baa ku xidhan aadna u isticmaal halna dambaysan waan degay dahabta aad iyo aad baad mahadsantahay waan ku hambalyeynaa waad guulaysatay waxaad ku guulaysatay $15 oo internet muddo hal bilaad si lacag la'aan telefoonkaaga u isticmaalaysaa maxaad leedahay Samtel aan aad baan ugu hambalyeynaa shirkadda waana la garab taaganay taageero fiican garooga guulayso shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel magacaaga igu bilow walaal magacaygu waxa weeyaan Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed oo xafideedka diganta magaalada Hargeysa waxa ka deganahay guriga Soomaa Samtel ma isticmaashaa su'aal baan ku weydiinayaa su'aashu waxay ku odhanaysaa shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel macaamiisheeda waxay u daahfurtay abaalmarino 5,000 gaadhaya oo 10 baabuur aad ku guulaysato saddexdaas shuruudood maxay kala yihiin inaad ii dahab isticmaasho inaad lacag prepaid ku shubato iyo inaad internet ku shubato waad guulaysatay waan ku hambalyeynaa shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel maxaad leedahay waxaan leeyahay hore u socdo hastaagina bulshada idinkunba wadeegaya inkastoo abaalmarinihii aad bixinayseen shirkadda Telesom ay ugu soo istaagtay macaamiisheedii kale oo ay makanadi ku soo dayanayso aad baa ku dayasha mudan tihiin shirkadaha kale soo socdaan waxaan leeyahay Samtel ku daydaan insha Allah ku soo dhow walaal barnaamijka garooga guulayso shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel magacaaga noogu bilow assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaal magacaygu waa Shukri Axmed Daahir maxay hiday Samtel waan ku dhawahay walaal aad baa mahadsantahay aad iyo aad baan ku soo dhawaanay farxadda iyo tahay inaad igala qayb gasho barnaamijka shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel macaamiisheedu waxay u daahfurtay abaalmarino 5,000 gaadhaya oo 10 baabuur oo Hyundai ay ku jiraan in lagu guulaystana shuruudaha ku xidhan maxaad ka garanaysaa shuruudahaas walaal waxaan maxay hiday in la isticmaalo prepaid iyo maxay hiday internet iyo ii dahab
intabana waan aad iyo aad baad mahadsantahay waad guulaysatay aad iyo aad baan kuu hambalyeynaya waxaad ku guulaysatay $14.99 oo internet ah mid ka mid ah abaalmarinaha ugu qaalisan maxaad Samtel leedahay Samtel numberkii maxaad leedahay shirkadda Samtel aad baa u mahadsantiin maale aad baa u mahadsantiin aad iyo aad baan ugu faraxsanahay anaaba aad baad u mahad okay walaal ku soo dhaw barnaamijka garow guulayso shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel magacaaga noogu bilow يوسف هذا محمد باليرولا يوسف oo Samtel ma isticmaashaa su'aal baan ku weydiinaya su'aashu waxay qoonaysaa shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel macaamiisheeda waxay u daahfurtay 5,000 oo abaalmarinood oo 10 baabuur oo Hyundai ku jiraan saddex shuruudood baa ku xidhan in lagu guulaysto maxay kala yihiin saddexaas shuruud waxa weeye in dahabka inaad leedahay ku furan inaad prepaid-keeda inaad isticmaasho iyo prepaid-keeda inaad isticmaasho iyo internet-keeda waan ku hambalyeynaya waad guulaysatay shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel maxaad leedahay waa shirkad wanaagsan oo ummadda wax weyn bay soo kordhisay oo abaalmarinta inta la guli shirkad bixisa lama arag marka intaana ka sii kordhiyaan leen insha Allah waa idinka madoola markale waxaan idin leeyahay ciid mubaarak jimca mubaarak guud ahaan asxaabta ku xidhan page-ka shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel waa daawanaysan macaamiisha kala duwan ee guulaystay qaybtii kale aynu geli doonaa habeennimadka ahayd oo caawa abaalmarin qaali lagu bixinayo oo laptop ah iyo abaalmarino kale oo 9 ka kooban markaas waxaan idin leeyahay isla socod wanaagsan shuruudahana hal la buuxiyo si aad u guulaysataan magacaygu waa Suugaan magacaygu waa Qamar waan isku eegnahay isku si ayaan u hadalnaa isku midna waana anigu waxaan isticmaalaa Samtel sababtoo ah isticmaalo maalintii oo dhan waxa aan ku shaqtaa 5,000 oo shilin waxa aan helaa 1 GB oo aan isticmaali karo 10 isho oo internet oo anigu internet inta ka yar ayaan ku iibsadaa maalin kasta qiimo inta ka qaalisan bisha oo dhan waxaan internetka kaga qabeelaa $5 oo kaliya yaa oo ma aha oo anigu lacag inta ka badan ayaan ku bixiyaa oo waan gacanahay fikir Samtel ugu kale internet xawaarihiisu sareeyo waxaad ku shuban kartaa $1 adigoo helaya 5 GB iyo 500 oo daqiiqo aad isticmaali karto sidoo kale bishoo dhan waxaad kaga xaqabeelaysaa $5 adigoo helaya 18 GB oo internet ah Samtel shirkadda dadweynaha magacaygu waa Suldaan magacaygu waa Seeraar isku si ayaan u hadalaa isku sina waanu libisanaa isku midna waanu nahay anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warmaahay run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2,500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi ma aha maxaad mar hore igu sheegi weyday fikir hadal oo hadaalin maalinta oo dhan ku hadal 2,500 oo shilinka Soomaaliya وعنا وناكسن جود هانتنا صحابتك كحرم بيتك شركة إسكارسين تعصري سمتل ملك استوى عالم ككتشوك تان وحنا دلنا عيد مبارك جمعة مبارك عاوة مناسبة بدن بايسكلاي هبين كسته أو خميسة جمعة نسوقلي هلكم بينو كلنا عاوة سهبين ندي هروي كدوان تاي وح عاوة ستوصي سوقلي برامج كيني جمعه مناسبة دي عيدة وبرية جود هانتين أنا فرصة كفاية سنة مسلمين تعالم كجارهان سومالي ذا جارهان رير سوماليان gaar ahaan inta ku xidhan beedka shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel waxaan leeyahay ciid mubaarak sanadkiisa ilaahay nagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo caawa farxado badan baan idin sidaa barnaamijka garow guuleysay shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel waxa lagu guuleysanayaa hadiyado qaaliya oo uu caawa ku jiro laptop connected yaala waxaan guud ahaan u sidaa bishaaro macaamiisha kala duwan ee shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel oo aan ugu bishaareynayay maalinta Isniinta ee 3 bisha 8 sanadkan 2020 lagu guuleysan doono 250 abaalmarinood oo uu qayb ka yahay gaarigii labaad ee Hyundai oo cusub oo 0 kilomitir oo hadii aad ku guuleysatid aad noqonaysid qofka ugu horeeya bishaaradaasi ayaa dhamaantiin idin sidaa waxaan idin leeyahay raaca shuruudihii ku shubta lacagta ku hadalka internetka shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel sidoo kale ii dahabtaada ka shaqeysay internetka shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel sidoo kale ii dahabtaada ka shaqeysay dhaqdhaqaaqeeda saddexdaasina waxay suuragal kaaga dhigayaan inaad noqon kartid qofka Isniinta dambe ee toddobaadka soo socda ku guuleysan doona gaariga Hyundai-ga ah aan idin ka soo sheekeeyay qiimihiisa cusub ee sanadkan 2020 ka soo baxay hore waa u daawateen mid ka mid ah macaamiisha shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel baa ku guuleystay gaarigii ugu horeeyay baabuurtu waa 10 hadiyadahaasi ku jira waxa xusid mudan hadiyado kale oo qaali ah ayaa qayb ka barnaamijka
waxaan leeyahay dhammaantiin kusoo dhawaada caawana barnaamijka garoowa guuleysa shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel oo ay ku jiraan isla caawaba abaalmarino qaali iyo laptopkani uu qayb ka yahay macmiil kasta oo ka qayb gala barnaamijka garoowa guuleysa sidoo kale waxaa fursad u haystaa toddobaadka dambena uu guuleysan doono in macaamiisha kala duwan ee shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel ay ku guuleystaan abaalmarino kala duwana waxay shirkaddu ugu talagashay in guud ahaan macaamiisha lagu celiyo macaashkii ama faa'iidadii ay faa'iiday si loo tuso in shirkaddu ay garab taagan tahay haddaba inta haddana daawanaysa waxaan idin leeyahay garoowa guuleysan ku guda jirnaa si aad uga mid noqotid guuleystayaasha habeenkani caawa ama abaalmarinta ugu qaalisan aad ugu guuleysatid waa inaad raacdid tallaabooyinkani oo ay ugu horeyso inaad like saarto page-ka shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel haddii aad ku cusub tahay oo aanad hore uga mid ahayn asxaabta ku xidhan iyo sidoo kale inaad share gareyso barnaamijka garoowa guuleyso ee aad haatan daawanaysid oo qofka ugu sheerta badan uu noqonayo qofka caawa abaalmarinta ugu qaalisan ku guuleysanaya ee ah laptopkani halkan yaala iyo sidoo kale telefoon numberkaaga Samtel ee shaqeynaya aad gacanta ku haysid aan xidhnayn dabka aanu ka dhicin aad noogu qortid qaybta commentiga sidoo kale waxaan ugu qori kartaa telefoon numberkaaga Samtel oo ay gaar u tahay hablaha oo aanu leenahay waxaad telefoonkiina noogu qori kartaa qaybta fariimaha gaarka ee messengerka loo yaqaano maadaama habluhu aanay jeclayn in meel dad badan joogaan oo buuqa ay telefoon numberkooda ku qoraan Samtel waxay fursad u siinaysaa in meel annaga kaliya lambarkaaga arki karno cid kale ka arki karin aad ka soo qortid lambarkaaga sidaas inaad ku buuxisid shuruudaha barnaamijka garoowa guuleyso qaybna uga noqotid guuleystayaasha habeenkani caawa loogu talagalay inay abaalmarinaha kala duwan ku guuleystaan toban abaalmarinood caawa lagu guuleysan doonaa abaalmarinta ugu qaalisan waa laptopkan agteeda yaala waxaa xusid mudan 9 kale oo abaalmarinood oo la xidhiidha adeegyada ay shirkadu bixiso ayaa qayb ka ah oo ay qayb ka tahay inaad ku guuleysatid bil si lacag la'aan ah telefoonkaaga Samtel ugu hadashid bil si lacag la'aan ah telefoonkaaga Samtel internetka ugu isticmaashid sidoo kale inaad heshid adeegyo kale oo kala duwan oo la xidhiidha adeegyada ay shirkadu bixiso sida internetka iyo sidoo kale ku hadalka labadaba guud ahaantiin waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baan leeyahay ciid mubaarak jimca mubaarak ilaahay naga dhigo kuwa sanadkiisa ku gaadho bashbash iyo barwaaqo dhammaantiin waxaan idin la qaybsanaynaa farxadda ciida macaamiisha kala duwan shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel waxay idin leedahay waxaan idin la qaybsanaynaa farxadda ciida sidaas darteed waxaa macaamiisha halkan lagu caawa la siin doonaa abaalmarino kala duwan waxaana loogu bashaareyn doonaa inay fursad u haystaan inay ku guuleystaan abaalmarino gaadhaya 250 abaalmarino toddobaadka soo socda maalinta Isniinta 3 bisha 8 sanadkan 2020 abaalmarinahaasi oo gaadhi Hyundai ah oo 0 kilomitir ah oo adiga hadda ku guuleysatay aad noqonayso qofkii ugu horeeyay gaadhigaasi ka haystana lagu bixin doono kaas oo ah gaadhigii labaad ee shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel ay bixinayso macmiilka ku guuleysta toddobaadka dambe waa lagu dhawaaqi doonaa waa loo hambalyeyn doonaa waa lala hadli doonaa sidaasina waxa uu kula wareegi doonaa toddobaadka kasii dambeeya gaadhigiisa waxaan idin leeyahay guud ahaan macaamiisha Samtel telefoonadiinu ha furnaadaan yaanay xidhnaanin yaanay ku dhaafin fursadaad ku guuleysan kartid oo adoo guuleystay aan lambarkaaga la waayin sidoo kale macaamiisha kala duwan ee shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel waxaan leeyahay raaca shuruudihii ahaa inaad marka waxaad leeyahay yaan la moogaanin hal raaco talaabooyinka hal raaco shuruudaha macmiil kastaana ha buuxiyo shuruudaha loogu talagalay macaamiishu si ay u guuleystaan garoowa guuleysan caawa waxaan bixinaynaa 10 abaalmarinood oo ay ugu qaalisan tahay kombiyuutarka ama laptopka dhagteeda yaala waa laptop cusub qofka ku guuleysta wax badan buu ka anfici doonaa waxaana loogu talagalay macaamiisha kala duwan ee shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel mid idinkayda ka mid ku guuleysan doona si haddaba aad uga mid noqotid guuleystayaasha waa inaad raacdid tallaabooyinkani oo ay ugu horeyso inaad like saarto page-ka shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel inaad share gareyso barnaamijka garoowa guuleysaad haatan daawanaysid oo qofka ugu sharta badan noqonayo macmiilka abaalmarinta ugu qaalisan ku guuleysan doona telefoon numberkaaga Samtel ee shaqeynaya haatan gacanta ku haysid ayaad sidoo kale noogu soo qori kartaa qaybta commentiga haddii halkaasi aad kala xiishooto gaar ahaan hablaha waxaan leeyahay telefoon numberkiina Samtel waxaan ugu soo qori kartaan qaybta fariimaha gaarka ee messengerka loo yaqaano taasi oo fursad dahabi ah oo ay ku siinayso shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel maadaama habluhu aanay jeclayn in telefoonkooda lagu soo qoro goob fagaara oo dad badani ay joogaan waxaad iga sugaysaa waa guuleystihii koowaad ee habeenkii caawa ee barnaamijka garoowa guuleyso macaamiisha kala duwan ee shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel loogu talagalay waxaa xusid mudan caawa barnaamijka sidii hore wuu ka xiiso badan yahay anaguna waan ka farxad badanahay waxaan idin la qaybsanaynaa farxadda ciida iyo jimcaha iskalay oo guud ahaan muslimiinta caalamka aanu leenahay ciid mubaarak gaar ahaan macaamiisha kala duwan ee shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel aan leenahay ciid mubaarak ciidan ciideeda ku gaadha bashbash iyo barwaaqo
guuleystaha koowaad ee habeenkani caawa ee barnaamijka garoowa guuleyso ayaad iga sugaysaan balse intaanan inoo soo qaban si aad uga mid noqotid guuleystayaasha waa inaad raacdid tallaabooyinkani oo ay ugu horeyso inaad like saarto page-ka shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel si aad uga mid noqotid macaamiil tiro badan saaxiibo tiro badan oo ku xidhan page-ka shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel waa haddii aanad hore uga mid ahayn sidoo kale waxaa xusid mudan inaad share garayso barnaamijka garoowa guuleysada haatan daawanaysid oo qofka ugu sheerta badan uu noqonayo macaamiilka ku guuleysan doona abaalmarinta ugu qaalisan habeenkani caawa iyo sidoo kale inaad telefoon nambarkaaga Samtel ee shaqeynaya ee aad haatan gacanta ku haysid nagu qori kartid qaybta fariimaha qaybta ilaahda faalooyinka ee commentiga loo yaqaano haddii halkaas aad kala xishootidna waxaad nagu soo qori kartaa qaybta messengerka loo yaqaano guud ahaantiin aad iyo aad baad umahadsantiin macaamiisha kala duwan ee shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel meel kastoo aad joogtaan waxaan kaloo idinku bashaareynaya inaad ka faa'iideysataan fursadda lagu bixinayo baabuurkii labaad ee Hyundai ah iyo in ka badan 250 abaalmarinood oo loogu talagalay macaamiisha kala duwan ee shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel taasi oo macnaheedu yahay in macaamiisha shirkaddu ay faa'iidadii wax ku celiso waxaa xusid mudan sanadkan 2020 shirkaddu waxay u dabaaldegaysaa 10 sano guuradeedii maadaama la aasaasay sanadkii 2010 in macaamiishan kala duwan la abaalmariyaan waxay qayb ka tahay dabaaldega sanad guuradaasi 10aad ee shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel shirkaddu waxay u mahadcelinaysaa macaamiil kasta oo qayb ka ah barnaamijyada kala duwan ee shirkaddu ay bixisay adeegyada kala duwan ee shirkaddu ay bixisay barnaamijka garoowa guuleyso iyo barnaamijyo kalena waxay qayb ka yihiin macaamiisha loo mahadceliyo guud ahaantiin aad iyo aad baad mahadsantihiin inta ku xidhan shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel page-keeda ay Facebook ku leedahay si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa anigu yaana fursadan ka faa'iideysanaya macaamiisha kala duwan iyo saaxiibada kala duwan ee ku xidhan barnaamijka garoowa guuleyso oo halkan anigu idinka daadihiyo waxaan idin leeyahay ciid mubaarak meel kastoo aad caalamka ka joogtaan ciidan ciidada ilaahay nagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo guuleystaha koowaad ee habeenkani caawa ee barnaamijka garoowa guuleyso inoo daahfuray nasiibka u yeeshay inuu noqdo qofka koowaad ee caawa abaalmarin ku guuleysta ayaynu halkan idinka soo baahin doonaa telefoonkiisa inuu la hadli doonaa waynu u hambalyeyn doonaa guud ahaantiin aad iyo aad baad umahadsantihiin macaamiisha kala duwan ee shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel guuleystaha koowaad ee habeenkani caawa ee barnaamijka garoowa guuleyso waxa weeye lambarkiisu eber 65917368 guuleystahaasi aad iyo aad buu mahadsan yahay waynu hambalyeynayna meel kasta uu joogo khadkeenu soo gelin doonaa si toos aynu la xiriiri doonaa waynu u hambalyeyn doonaa waxaynu u sheegi doonaa inuu ka mid yahay guuleystayaasha ee habeenkani caawa ciid mubaaragna waynu ku leenahay isaga iyo inta haatan sida tooska page-ka shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel nooga daawanaysa assalaamu calaykum وعليكم السلام walaal soo dhawow cawaysin wacan oo wanaagsan ciid mubaarak jimca mubaarak magacaaga noogu bilow عيد مبارك وندوهي magacaygu Xuseen Umar baa aad iyo aad baad mahadsan tahay shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel barnaamijka garoowa guuleysta macaamiisha caawa ku guuleystay baad ka mid tahay waxaad ku guuleysatay $5 oo adeega muraada muddo hal bil aad si lacag la'aan telefoonkaaga Samtel aad u isticmaalaysa maxaad shirkadda leedahay ciid mubaarak baan leeyahay waan u mahadnaqayaa insha Allah anaguna aad iyo aad baan kugu mahadnaqaynaa waxaan ku leenahay caawa saaxiibo badan wax u hambalye maadaama aad lacag la'aan ku hadlaysid way in badan insha Allah aad baa mahadsan tahay aad iyo aad buu mahadsan kaasi waxa uu guuleystay koowaad waxa uu caawa iyadoo iida munaasabad iida uu nasiib u yeeshay inuu ku guuleysto $5 oo adeega muraado muddo hal bil si lacag la'aan oo cidda uu doono uu telefoonkiisa Samtel ugu hadli karo caawa farxad gaar ah ayay u tahay maadaama uu ciddu rabo uu uga hambalyeyn karo munaasabada ciidda isagoon ka warwareyn in telefoonkiisa uu lacag la'aan ka noqdo isla markaasina shirkadda uu macaamilka u yahayna ay maanta fursad u siisay inuu iyadoo ciida uu ku guuleysto abaalmarintaasi haddaba si aad idna uga mid noqotid guuleystayaasha habeenkani caawa waa inaad raacdid tallaabooyinkani oo ay ugu horeyso inaad like saarto page-ka shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel iyo sidoo kale inaad share garayso barnaamijka garoowa guuleyso aad haatan daawanaysid iyo in telefoon nambarkaaga Samtel ee shaqeynaya aad haatan gacanta ku haysid aan xidhnayn aad nagu qori kartid qaybta faalada ee commentiga loo yaqaano hablaha ayaan si gaar ah ugu bashaareynaya inay haystaan fursad dahabi oo shirkaddu ay siisay oo ah in telefoon nambarkooda Samtel ee shaqeynaya ay gacanta ku hayaan ay nagu qori karaan qaybta fariimaha gaarka ah ee messengerka loo yaqaan halkaasi waa naga kaliya telefoonkooda arki karno isla markaasina iyaguna ay sidaas ku guuleysan karaan
guulaystaha labaad ee habeenkani caawa ee barnaamijka garooga guulaysa shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel ayaad naga sugaysaan balse intaynaan u gudagelin waxaan idinku bashaareynaya macmiil kasta oo shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel kamid ah gaar ahaan kuwa iminka nagu soo biiray inay fursad u haystaan in telefoonkooda ee Samtel ay ku guulaysan karaan oo u horseedi karo inay abaalmarin qaali ku guulaystaan haddii aad raacdo talaabooyinkan ay ugu horeyso inaad iibsato xirmooyin internet in dahabkaaga aad ka shaqaysiiso iyo inaad ku hadal ku shubato labadaba waxaad fursad u haysataa inaad ku guulaysan karto abaalmarin qaali oo 250 ka kooban 3 bisha lagu dhawaaqi doono oo ugu horeeya gaariga Hyundai kaasi oo ah gaarigii labaad oo Hyundai ah oo lagu guulaysan doono ay ku guulaysan doonaan macaamiisha kala duwan shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel guulaystaha koobaad baan noo soo qabanaya guulaystaha koobaad lambarkii aan idhaahday guulaystaha labaad ee habeenkii caawa maadaama farxadayda aad faraxsanahay alagaraan leeyahay caawa guulaystaha labaad ee habeenkii caawa lambarkiisu waxa weeye eber 65 eber 4 saddex eber waa guulaystaha labaad ee habeenkii caawa barnaamijka garooga guulaysa shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel si toos ah ayuu qadka ugu jiraa hello salaam calaykum ciid mubaarak walaalo magacaaga iyo muuqaaga waxa jiraan cawaysin waxana waan ku leenahay magacaaga noogu bilow xabibti aad iyo aad baad mahadsantahay kaaga mahad celinayna inaad barnaamijka ka qayb gashay waxaanu ku faraxsanahay inaad guulaystayaasha caawa ka mid tahay waxaad ku guulaysatay $2 oo adeega muraada si lacag la'aan 7 maalmood telefoonkaaga Samtel uga hadli kartaa maxaa shirkadda leedahay wallahi aad bad maasantid adiga iyo sagal baldeeqba iyo dhamaan shirkadda Samtel baad mahadsantiin kulli waxaad wadaan waa barnaamij dhiirigelina macaamiisha marka waxaan leeyahay hore u socda insha Allah aad baad mahadsantahay anaguna waxaan ku leenahay caawa cid allaale cid aad doontid waxa waxaad ku tiraahdaa ciid mubaarak way magaalada xiisinaya caawa aad iyo aad bay mahadsantahay taasina waxay aad guulaystay labaad habeenkii caawa barnaamijka garooga guulayso macaamiisha kala duwan ee shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel waxay ku guulaysatay adeega muraad oo muddo 7 maalmood si lacag la'aan ay telefoonkeeda Samtel u isticmaali karto waxay fursad u haysatay in caawa dad badan ay ku tiraado ciid mubaarak maadaama aanu telefoonkeedu lacag ku soo qorayn shirkaduna waxay ugu talagashay macaamiil kala duwan caawa jumcaha oo ciida ay fursado kala duwan ay siiso haddaba si aad adigu uga mid noqotid guulaystayaasha habeenkii caawa waa inaad raacdo talaabooyinkan oo ay ugu horeyso inaad like saarto page-ka shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel inaad share gareyso barnaamijka garooga guulaysa aad haatan daawanaysid in telefoon numberkaaga Samtel ee shaqeynaya aad haatan gacanta ku haysid aan ugu soo qortid qaybta commentiga haddii halkaas aad kala xishooto si gaar ah hablaha waxay telefoon numberkooda Samtel ee shaqeynaya ugu soo qori karaan qaybta fariimaha gaarka ee messenger-ka loo yaqaan halkaas iyo anaga kaliya aan arki karno waxaan ugu bishaareynaya macaamiisha kala duwan ee shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel inta haatan ugu soo biirtay iyo inta hore noo daawanaysaba in isniinta toddobaadka dambe 250 abaalmarinood la bixin doono kuwaasi oo uu ku jiro gaarigii labaad ee Hyundai ah oo lagu guuleysanayo kaasi oo ah 0 kilometer waxa afka qalaad loogu yeeray ama gaari aan hore loo kaxaysan kilometerkiisuna uu eber yahay adiguna aad noqonaysid qofkii ugu horeeyay ee gaarigaasi kaxaysta waxa sidoo gaarigan waxa soo baxay sanadkan 2020ka marka ay shirkadu dalbatay ayaa la isku la xirxiray la diyaariyay waa gaari cusub waxaan idin leeyahay macaamiisha kala duwan haddaba si aad u guulaysataan oo abaalmarinaha kale iyo baabuurkaasi aad ugu guulaysataan waa inaad telefoonkaaga ku shubatid lacag ku shubasha inaad iibsatid xirmooyinka internetka ee shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel cadadkay doonaan ha ahaadaan in iyo sidoo kale in dahabtaada aad ka shaqaysiisid oo aad noqotid qof dahabtiisa ka shaqaysiinaya waxaan u bashaareynaya ganacsatada oo iyaga si gaar ah haddii dahabtooda wax laga iibsado ama ay wax ku iibiyaan ay iyaga iyo qofku wax kaga iibsaday ay fursad u haystaan si toos ah u gali karaan tartanka loo galiyo 250 ka abaalmarinood ee toddobaadka dambe lagu dhawaaqi doono guulaystaha saddexaad ee habeenkii caawa ee barnaamijka garooga guulayso ee shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel ayay inoo soo qabanaya waa mid kamid ah intii naasi daawanaysay guulaystaha lambarkiisu waxa weeye eber 65 41169 waxa uu ku guulaystay abaalmarin qaali aad iyo aad baynu ugu hambaliyaynaynaa guulaystahaasi waxaynu uga mahad celinaynaa inuu ka qayb galay barnaamijka garooga guulayso shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel dhammaantiin guud ahaantiin saaxiibada ku xidhan page-ka shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel waxaan idin leeyahay ciid mubaarak hello salaam calaykum cawaysin wacan oo wanaagsan ciid mubaarak jimca mubaarak soo dhawo walaalo magacaaga noogu bilow magacaygu waa Cabdirashiid Umar Xaashi
cabdirashiidow soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaadba caawa guulaystayaasha macaamiisha kala duwan ee shirkadda isgaarsiinta casriga samtel barnaamijka garoowa guulaysaad ka mid tahay waxaad ku guulaysatay $10 oo internet ah muddo hal bil ah ayaad si lacag la-aan internetkaaga telefoonkaaga samtel ugu isticmaalaysaa maxaad leedahay shirkadda shirkadaas waxaan leeyahay joogo baan leeyahay waxaan ku leeyahay lagu soo hirdasho samtel aad iyo aad dad maasantahay hambaliyaan ku leenahay hambaliyo helayaan kooya aad iyo aad buu mahadsan yahay guulaystahaasina $10 oo internet oo muddo hal bil ah uu internetkiisa simikaarkiisa samtel si lacag la-aan ugu isticmaalayo ayuu ku guulaystay guud ahaantiin macaamiisha kala duwan ee shirkadda isgaarsiinta casriga ee samtelna waanu mahad celinaynaa haddaba si aad adigu caawa uga mid noqotid guulaystayaasha habeenkani caawa ee ciida ee jimcaha ah ee loogu talagalay inay ku guulaystaan barnaamijka garoowa guulayso waa inaad raacdid tallaabooyinkani oo ay ugu horeysa inaad like saarta pageka shirkadda isgaarsiinta casriga ee samtel inaad share garayso barnaamijka garoowa guulayso aad haatan daawanaysid in telefoon nambarkaaga samtel ee shaqaynayaad haatan gacanta ku haysid aad noogu qortid qaybta commentiga haddii halkaasi aad kala xishooto gaar ahaan hablaha waxay haystaan fursad kale oo telefoon nambarkooda samtel ee shaqaynaya ay noogu soo qori karaan qaybta fariimaha gaarka ah ee messengerka loo yaqaano waxaan sidoo kale macaamiisha kala duwan ee shirkadda isgaarsiinta casriga samtel ku boorinayaa in maalinta isniinta la bixinayo abaalmarintii ugu qaalisaneed oo aan horey idinku soo sheegay laakiinse waxaan idinka codsanayaa in telefoonadiinu ay furnaadaan ay shaqeeyaan isla markaasina aanay noqonin kuwo baktiisa ama dabka dhaco ama liidin waayo iyo inaad raacdaan tallaabooyinka loogu talagalay macaamiisha guulaystayaasha ah ee ku guulaysan doona abaalmarino kala duwan gaar ahaan abaalmarinta ugu qaalisan ee ah gaariga Hyundai-ga ee sanadkan 2020 soo baxay 0 kilomitirka ah ee loogu talagalay mid ka mid ah macaamiisha kala duwan ee shirkadda isgaarsiinta casriga ee samtel uu ku guulaysto guud ahaantiin aad iyo aad baad mahadsantihiin waad kaga mahad celinaynaa waqtigiina qaaliga macaamiisha kala duwan ee shirkadda isgaarsiinta casriga ee samtel gaar ahaan macaamiisha sida gaarka ugu taxan barnaamijka garoowa guulayso caawa barnaamijka garoowa guulayso waa barnaamij xiiso badan waxa uu kusoo beegmay munaasabado badan iyadoo munaasabad jimca munaasabad ciid ay iskaleen macaamiisha ciid mubaarak jimca mubaarak ayaan leenahay meel kastoo ay joogaan waxaa kaloo xusid mudan in caawa abaalmarinta ugu qaalisan aynu ku bixin doono barnaamijka ay tahay laptopkan haatan agteyda yaalla kaasi loogu talagalay mid kamid ah macaamiisha kala duwan ee shirkadda isgaarsiinta casriga ee samtel uu ku guulaysto guulaystaha afraad ee habeenkani caawa ee barnaamijka garoowa guulayso ee mid kamid ah macaamiisha kala duwan ee shirkadda ayaynu soo qaban doonaa guud ahaantiina waxaanu idinkaga mahad celinaynaa inaad waqtigiina noo hortaan iyadoo munaasabad ciida ay tahay howlo badan ay yaalaan laakiinse inaad ku taxantiin ood si toos aad u daawanaysaan barnaamijka garoowa guulaysa shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee samtel guulaystahan lambarkiisa waxaa weeye eber 6543 eber 714 eber waxa uu ku guulaystay xirmooyin kala duwan waaynu la xiriiri doonaa waynu hambalyeyn doonaa waxaanu u sheegi doonaa inuu caawa guulaystayaasha kala duwan ee barnaamijka garoowa guulaysa shirkadda isgaarsiinta casriga ee samtel uu ka mid yahay aad iyo aad baynu ugu mahad celinaynaa khadku haatan si toos ugu jira halo salaamu calaykum calaykum asalaam walaa soo dhawow caweysin wacan oo wanaagsan magacaaga noogu bilow magacaygu waa maxamuud muuse ismaan joogo idinla socda maxamuud aad iyo aad baad mahadsantahay waan ku hambalyeynayna caawa guulaystayaasha shirkadda isgaarsiinta casriga samtel baad ka mid tahay waxaad ku guulaysatay xirmooyin hadal iyo internet isugu jira oo muddo 7 maalmood ah maxaad leedahay shirkadda isgaarsiinta casriga samtel wallahi waxaan leeyahay shirkad wanaagsan weeye waan hambalyeynaya aniga dadka iga dambeeya aad iyo aad baad mahadsantahay anaguna adaan aad iyo aad ku hambalyeynayna iyo intii kaa horeysayba inta kaa dambaysa dib baan u dhiganaynaa aad baa mahadsantahay aad iyo aad buu mahadsan yahay guulaystahaasina waxa uu ahaa guulaystihii afraad ee barnaamijka garoowa guulayso ee shirkadda isgaarsiinta casriga samtel aad iyo aad buu mahadsan yahay macaamiisha kala duwan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin sida ay uga qayb galeen barnaamijka haatanna waxaan idin leeyahay si aad daba adiguna aad uga mid noqotid guulaystayaasha caawa guulaystaya 4 ka kooban maadaama 6 abaalmarinood oo keliya noo hadhay waa inaad raacdid tallaabooyinkani oo ay ugu horeyso inaad like saartid pageka shirkadda isgaarsiinta casriga samtel inaad share galaysid barnaamijka garoowa guulaysada haatan daawanaysid in telefoon nambarkaaga samtel ee shaqaynaya haatan gacanta ku haysid aan ugu qori kartid qaybta fariimaha gaarka aan iraahday qaybta commentiga ee faalooyinka ama qaybta fariimaha gaarka ee messengerkan ay habluhu noogu soo qori karaan telefoon nambarkooda guud ahaantiin waxaan leeyahay mar kale ciid mubaarak jimca mubaarak farxadan macaamiisha kala duwan ee shirkadda isgaarsiinta casriga samtel ay shirkadu la qaybsanaysaa barnaamijka garoowa guulaysana caawa munaasabado badan baa ku beegmay macaamiisha abaalmarino kala duwan baa la siiyey qaarkood hadal baa la siiyey qaarkood internet baa la siiyey maadaama caawa ay dad badan ishambalyeynayaan iskugu hambalyeynayaan munaasabada ciidul adxana
waa fursad qaariya macmiilka hela in telefoonkiisa lacag la-aan uga hadlo macmiilka hela inuu internet lacag la-aan helo waa fursad aad u dahabiya shirkaduna macaamiisheeda kala duwan waxay ku leedahay waa ku mahadsantihiin habka uga qayb gashaan adeegyada kala duwan iyo sidoo kale adeegyada kala duwan ee shirkadu ay bixiso waxaan ugu bishaarinayaa macaamiisha toddobaadka dambena abaalmarintii qaaliga ahayd ayaanu bixinaynaa qof kasta oo caawa garoo guulayso lambarkiisa soo qorayna waxa uu fursad u haystaa inuu si toos ah ugu biiro systemka kala xulidda iyo sidoo kale tartamidda ee macaamiisha kala duwan ee shirkadda isgaadhsiinta casriga ah ee Samtel guud ahaantoon meel kasta waxaan idin leenahay ka qayb qaata barnaamijka ee 5,000 hadiyadooda waad guulaysan kartaa toddobaadkii hore waxaad daawanaysay mid kamid ah macaamiisha oo gaari qaali ku guulaystay adna toddobaadka dambe waxaad ku guulaysan kartaa gaari qaali ah niyadana khayr ha loo sheego talaabooyinkana ha la raaco qof kasta oo abaalmarinaha isku guulaysanay waxa uu ahaa qof buuxinaya shuruudaha loogu talagalay macaamiishu inay guulaystaan guulaystaha shanaad ee habeenkii caawa ee barnaamijka Grow guulayso ayaynu soo qaban doonaa waa mid kamid ah intii ay daawanaysaa waa mid kamid ah macaamiisha kala duwan ee shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Samtel guulaystaha nambarkiisu waxa weeye eber 6591774 waxa uu ku guulaystay abaalmarin qaaliya khadkeenu soo gelin doonaa waynu hambaliyeen doonaa waxaynu ugu hambaliyeen doonaa munaasabada ciidda iyo abaalmarinta uu ku guulaystay labadaba guud ahaantiina idinkana waxaan idinku hambaliyeenayaa munaasabada ciidda assalaamu calaykum waa mahadsantahay kule internetka iga daawanaysa waxaan rajeynaya internetka oo iska yara baktiin doontid aniga ila hadli doontid magacaaga noogu bilow magacaygu waa Khadar Yusuf Islaan Sagalay waa markii labaad barnaamijka ku guulaysto aad ma sha Allah na farxad ay tahay in qof mar hore guulaystay aanu haddana mar labaad ismaqalno waxay muujinaysaa inaad barnaamijka ku xiran tahay عادي الكمبيوتر كان ريموت غير تجي كوريا هذا هو كل شيء تجي الكمبيوتر راح يضرب جمعها dambe jimcaha kasii dambeeyo kuwa kasii dambeeyo abaalmarin ku rajeynayna fiican caaw ku dheeda abaalmarin aad u qaaliyad ku guulaystay waxaad ku guulaystay $15 oo internet muddo hal bil ah ayaad si lacag la'aan telefoonkaaga Samtel internetka ugu isticmaalaysaa ما شاء الله سيدنا ان شاء الله هذا كل شيء طريقه تاشف aad iyo aad baad mahadsantahay nin maxaniyaad u muuqataa عادي سكنه عبد aad iyo aad baad mahadsantahay anaguna aad baan kugu mahad celinayna aad iyo aad bay u mahadsan yahay guulaystahaasina Soomaaliduna waa dad aad ugu fiican in wax la bixiyo aad iyo aad buu mahadsan yahay si gaar ah magacaygu waa Suugaan magacaygu waa Qamar waan isku eegnahay isku si ayaan u hadalnaa isku midna wana anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu samee isticmaal maalintii oo dhan waxa aan ku shaqaa 5,000 oo shilin waxa aan helaa 1 GB oo aan isticmaali karo 10 isho oo internet oo anigu internet inta ka yar ayaan ku iibsadaa maalin kasta qiimo inta ka qaadis bisha oo dhan waxaan internetka kaga qabeelaa $5 oo kaliya yaa oo ma aha oo anigu lacag inta ka badan ayaan ku bixiyaa oo waan gacanahay fikir Samtel ugu kale internet xawaarihiisu sareeyo waxaad ku shuban kartaa $1 adigoo helaya 5 GB iyo 500 oo daqiiqo aad isticmaali karto sidoo kale bishoo dhan waxaad kaga xaqabeelaysaa $5 adigoo helaya 18 GB oo internet ah Samtel shirkadda dadweynaha magacaygu waa Suugaan magacaygu waa Qamar waan isku eegnahay isku si ayaan u hadalnaa isku midna wana anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu samee isticmaal maalintii oo dhan waxa aan ku shaqaa 5,000 oo shilin waxa aan helaa 1 GB oo aan isticmaali karo 10 isho oo internet oo anigu internet inta ka yar ayaan ku iibsadaa maalin kasta qiimo inta ka qaadis bisha oo dhan waxaan internetka kaga qabeelaa $5 oo kaliya yaa oo ma aha oo anigu lacag inta ka badan ayaan ku bixiyaa oo waan gacanahay fikir Samtel ugu kale internet xawaarihiisu sareeyo waxaad ku shuban kartaa $1 adigoo helaya 5 GB iyo 500 oo daqiiqo aad isticmaali karto sidoo kale bishoo dhan waxaad kaga xaqabeelaysaa $5 adigoo helaya 18 GB oo internet ah Samtel shirkadda dadweynaha magacaygu waa Suldaan magacaygu waa Seeraar isku si ayaan u hadalnaa isku sina waanu libisanaa isku midna waanu nahay anigu se waxaan isticmaalaa Samtel isagu Samtel shirkadda dadweynaha magacaygu waa Suugaan magacaygu waa Qamar waan isku eegnahay isku si ayaan u hadalnaa isku midna wana anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu samee isticmaal maalintii oo dhan waxa aan ku shaqaa 5,000 oo shilin waxa aan helaa 1 GB oo aan isticmaali karo 10 isho
oo internet oo anigu internet intaa ka yar ayaan ku iibsadaa maalin kasta qiimo intaa ka qaadis bisha oo dhan waxaan internetka kaga haqabeelaa $5 oo keliya yaa oo ma ahe oo anigu lacag intaa ka badan ayaan ku bixiyaa oo waan dhacanahay fikir wixii qinde marka la degdegay wixii qaad وهجاج سوسو نقد وناكسن جود هانتنا سحبت كل الدوان سيدا توسكا وجوحرن بيتك شركة إسقارسين تعصر جاي سمتل سوسو نقد وناكسن وبرامج كني جرو وجوليسو هبين كستو جمعة خميسنا سوق جليس هبين كستو خميسان لهذا جمعة نسوق جليو أي مست وصل كان يوكلنا عاوسة ونجحي سبدي برامج دي هراء أول مرين قالينا مع عميش وانو هيا وحكلو حسد مدن مناسبة دي عيدنا ويس جلان والحمد لله هي مركلة عيد مبارك جمعة مبارك dhammaantiin waxaan leeyahay ilaahay acmaashii saalaxa ahaa ee maalmihii la soo dhaafay aynu soo wadnay ha inaga aqbalo ilaahay naga dhigo kuwo laga aqbalay acmaashii ay sameeyeen waxaan sidoo kale idin leeyahay dhammaantiin macaamiisha kala duwan ee shirkadda isgaarsiinta casriga samtela laga faa'iidaysto barnaamijka garow guuleyso oo caawa abaalmarino qaaliya ay ku jiraan 5 abaalmarinood baa inaga baxay taasoo macnaheedu yahay waxay noo hadhay 5 kale oo abaalmarinood haddaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha habeenkan caawa waa inaad raacdid talaabooyinkan oo ay ugu horeysay inaad like saartid page-ka shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel inaad share garayso barnaamijka Grow guuleyso haatan daawanaysid in telefoon numberkaaga Samtel ee shaqeynaya aad gacanta ku haysid nagu qortid qaybta fariimaha aan lahda qaybta faalooyinka ee commentiga haddii halkaas aad kala xishootay waxaan ugu qori kartaa qaybta fariimaha gaarka dhammaantiin waxaan idin leenahay waa ku mahadsantihiin sidaad qaybta uga tihiin barnaamijka Grow guuleyso waxaa soo kale telefoon numberkaaga aan ugu qori kartaa hablaha gaar ahaan qaybta fariimaha gaarka ah ee messengerka loo yaqaano ee taasoo ah fursad ay shirkadu siisay macaamiisha kala duwan ee shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel gaar ahaan kuwa hablaha maadaama ay jecleen meel buuqa dad badan joogaan ee telefoon numberkooda ay ku qoraan shirkadu waxay la dareentay guud ahaan macaamiisha kala duwan ee taasina waxay muujinaysaa inay si gaar ah ay hablaha ula dareentahay oo jeceshahay inay ka qayb galaan barnaamijka Grow guuleyso ee shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel macaamiisheeda ugu talagashay guuleystaha lixaad habeenkan caawa ayaan noo soo qabanay guuleystaan lambarkiisu waxa weeye bar 6544663 waxa uu ku guuleystay abaalmarin waxaan macaamilkaasi leenahay hambaliyo waxaan hambaliyeenaynaa 5tii macaamiil ee ka horeeyay lixdoodaba hambaliyo ayaan leenahay calaykum asalaam soo dhawo walaal magacaaga noogu bilow assalaamu calaykum calaykum asalaam walaal soo dhawo magacaaga noogu bilow waan dhawahay walaal magacaygu waa Hiba Cabdi Yuusuf hibaaq aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa caawa waxaad ku guuleysatay $2 oo adeega muraad ah muddo 7 maalmood si lacag aan telefoonkaaga Samtel cid arabto ugu wici kartaa waan ku hambalyeynaa maadid waa mahadsan hambalyeed leeyahay Samtel shirkadda maxaad leedahay shirkadda guuleystaan leh hore u socdo annaguna adaan ku leenahay guuleyso aad iyo aad bad mahadsan tahay ayo la takumullah aad iyo aad bay mahadsantahay taasina waxay aad guuleystay lixaad habeenkii caawa ee barnaamijka Grow guuleysay shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel meel kasta aad joogtaan waxaan idin leeyahay waa ku mahadsantihiin qayb ka tihiin barnaamijka Grow guuleyso waxaan idinku bushaareynayaa macaamiil kasta oo ka tirsan macaamiisha kala duwan ee shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel oo haysta fursad uu ku guuleysan karo abaalmarin qaaliya xidhayn inaad iibsato tiro fara badan lagu xidhayna lacag badan ku iibsato macaamiisha
haddana laakiin macmiil kasta waxa uu haystaa fursad uu ugu tartami karo inuu ka qayb galo abaalmarintani waxaa xusid mudan in abaalmarinahaasi 6 kamid ah ay naga bixeen 4 kaliya ay noo haray afartaasi abaalmarinta ugu qaalisan baa ku jirto laptopka nagteeda yaalo oo loogu talagalay mid kamid ah macaamiisha kala duwan ee shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel inuu ku guuleystaha toddobaad ee habeenkii caawa ee barnaamijka Grow guuleysta ka qayb galaya ayaynu lambarkiisa halkan yeerin doonaa waynu hambalyeyn doonaa khadkeenu soo gelin doonaa waxaynu u sheegi doonaa inuu caawa kamid yahay guuleystayaasha barnaamijka Grow guuleysta ku guuleystay oo internet oo anigu internet inta ka yar ayaan ku iibsadaa maalin kasta qiimo inta ka qaadan bisha oo dhan waxaan internetka kaga qabeelaa $5 oo kaliya yaa oo ma aha oo anigu lacag inta ka badan ayaan ku bixiyaa oo waan dhacanahay fikir Samtel ugu kale internet xawaarihiisu sareeyo waxaad ku shuban kartaa $1 adigoo helaya 5 GB iyo 500 daqiiqo aad isticmaali karto sidoo kale bishoo dhan waxaad kaga xaqabeelaysaa $5 adigoo helaya 18 GB oo internet ah Samtel shirkadda dadweynaha isu soo noqod wanaagsan marka la guud ahaantina saxaabta qadar xayeysiisa kadib waa isu soo laabanay barnaamijka Grow guuleysta shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel baynu ku guda jirnaa waa ciid mubaarak waa jimca mubaarak wax badan baa isgalay وقالية أو لغة تلاقي إنه كوجل يستمد كمدا مع مش كل دونا شركة وسجالسين تعسرقة Samtel جود هانتين وحنو دي كم هاد علينا ناس إذا لقيته وقتهين برامج كجرو جول هسجار عاو حنفير برامج كجرو جول يسوق كلها أنت أنا برامج كجرو جول يسوق أنت مسوي ده يعني هل كان يسكو براني جود هانتين عيد مبارك جمعة مبارك فرحة بيتها هنا عاو مناسبة عيدة iyo munaasabada jimcaha isgalay aan halkan idin kala hadlo idinkuna halkan
waxaan ku leenahay maxay ahayd jimca waan leeyahay caawo waxaan ku leenahay ciid mubaarig waxaan ku leenahay maxay ahayd jimca mubaarig wax badan baa isgalay aadna caawo waad guuleysatay oo guuleystayaashaad ka mid tahay waxaad ku guuleysatay abaalmarin hadal iyo internet isugu jirta oo muddo 7 maalmood ah maxaad leedahay macaamiisha kala shirkadda Samtel ee macaamilka u tahay shirkadda aad iyo aad baan idinkaga mahad celinaynaa sidaad qaybta uga tihiin barnaamijka Grow guuleyso meel kastoo aad joogtaan laba abaal lix sideed waxa uu ku guuleystay abaalmarinta ugu qaalisan laptopka ku guuleystay haddii ay suuragal noqoto caawa khadkaynu iska maqli doonaa waxaanu u sheegi doonaa inuu caawa ka mid yahay guuleystayaasha weliba uu yahay qofka ugu nasiibka badan abaalmarinta ugu qaalisan uu ku guuleystay aad iyo aad macaamiilkaasi u mahadsan yahay guud ahaan macaamiisha kala duwan ee shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel ee barnaamijkaasi ka qayb galay guuleystahaasi haddii ay suuragal noqoto khadkaynu soo gelin doonaa waynu la xiriiri doonaa waynu hambaliyeyn doonaa idinkuna waxaan rajeynaynaa ila sii hambaliyeyseen isla markaasina aabade aad iyo aad farxadda la qaybsanaysaan waxaan la qaybsanayaa aniguna waan jecelahay inaan hawada iska maqalno farxadda ciidda farxadda jimcaha farxadda laptopka uu ku guuleystay aad iyo aad dhammaantiin u mahadsan tihiin meel kastoo aad joogtaan ciid mubaarak jimca mubaarak ayaan idin leeyahay si gaar ah waxaan jimca mubaarak iyo ciid mubaarak u leeyahay hallo assalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. soo dhawo walaalo jimca mubaarak ciid mubaarak anigu si gaar ah waxaan ugu faraxsanahay in abaalmarintii ugu qaalisanayd inay ku guuleysatay bal magacaaga igu bilow ما شاء الله ولا سبب بدأت نقدر مسلمان بالهذا ولا شيء عيد مبارك جمعة مبارك بنتلاقي دمانتين هذه بنت مهتمتين laptop cusub baad ku guuleysatay shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel aad macmiilka u tahay maxaad leedahay ما شاء الله والله معلش حكون لها بسبب كنت مدوش صناع الحمد لله هذه جاب ونفسية هي وده كلام معلش شباب يولد تقص كده يروح بسوين كده في عنها حالتها ينفس يسرسها إن شاء الله بالمرتشينية عادي يد ما صنتها عدنا عادي يد ما صنت وقت قال جوا كهجم هاد علينا وانا نكون همبلييننا waxay ahayd guuleystihii abaalmarinta ugu qaalisan caawa ku guuleysta si gaar ah farxad gaar ah igu abuuraysa maadaama inaan abaalmarinta ugu qaalisanayd ay qaadatay
guud ahaantiin waxaynu halkaasi aynu bal bismillahi raxmaani raxiim magacaygu waa Yunus Rashiidiyey kana mid ah macaamiisha Somtel barnaamijka garoowe guulayso waxaan ku guulaystay mobilka macaamiil si aad ugu guulaysato hadiyadan waxaad sheer garaysaa page-ka Somtel barnaamijka sheer garee page-kana like saar shirkadana aad baan ugu mahadnaqayaa Somtel iyo shaqaalaheeda dhammaan barnaamijka iyo howladeennada qaybta ka barnaamijka bismillahi raxmaani raxiim magacaygu waa Suhayb Cabdiraxmaan Gahayr waxaan ka mid ahay macaamiisha shirkadda Somtel waxaan ka mid ahay guulaystayaasha